inta badan magaalooyinka iyo gobollada dalka Kenya waxaa ku yaala xarumo lagu iibiyo iyo kuwa gaar ah oo lagu cabo shiishada. hase yeeshee xarumahaasi ayaa albaabada la isugu dhuftay kadib go'aankii mamnuucista ahaa ee ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya. kadib markii uu soo baxay go'aankii mamnuucista ahaa ee ka ganacsiga cabista iyo in dalka la soo geliyo tubaakada shiishada ayaa ganacsatada shiishada ee dalka Kenya waxa ay maxkamadda dalka ay u gudbiyeen cabasho ku aadan go'aanka ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya. inkastoo maxkamadda sare iyo mas'uuliyiinta sarsare ee dalka Kenya ay si weyn u taageereen go'aanka mamnuucista ee shiishada. wasiirka annaka amar siinay annaka la hadalnay wali madaxda muslimiinta madaxda Soomaalida anaan u weeyahay mahad weyn ayaa dawladda Kenya u celinayna dadka ku baaba'ay shiishaha ee bulshada Soomaalida xaasaska Nairobi way baabeen hooyooyinka ayaa meeraha shiishada tubna habeenii maalin dhalinyarada ayaa tubnaayeen baabuurta lagu wataa shiishadana waxaa la soo confirm gareeyay inay dhibaatooyin fara badan oo caafimaadka ay keenayso. ayadoo ay jiraan dad aad uga caraysan go'aanka mamnuucista ee shiishada haddana taas beddelkeeda waxaa jira in go'aankaasi ay si weyn u soo dhaweeyeen inta badan bulshada muslimiinta ee dalka Kenya. arrin aad u fiican weeye diin ahaan bay aad ugu fiican tahay oo waxay ka mid tahay khabaa'ista waxyaabaha xunxun ee Ilaahay inaga xaaraantinimeeyay wa yuharrimu calaykum al-khabaa'is. الله waxyaabaha xunxun oo dhan buu idinka reebay marka diin ahaan caafimaad ahaan dhaqaale ahaan oo dhaqaale far badan baa lagu bixinayay waxa kale oo sabab u ahayd anagu aanu ogeyn burbur qoysas fara badan. qaaradda Afrika gaar ahaan geeska Afrika oo ay Soomaali badan ku nool yihiin ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa si aad ah ugu soo badanayay isticmaalka shiishada iyadoo inta badan la sheego in dadka ugu badan ee isticmaalo ay u badan yihiin dhalinyarada. Kenya ayaa noqotay wadankii saddexaad ee bariga Afrika ku yaala ee mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka shiishada. Horey waxaa wadamadooda uga mamnuucay dawladaha Rwanda iyo Tanzania. waxaana guud ahaan wadamada shiishada mamnuucay ee isku raaceen inay halis ku tahay caafimaadka muwaadiniintooda. dhakhaatiirta ayaa sheegaya in shiishadu ay tahay mid aad halis ugu ah caafimaadka qofka isticmaalaya. waxa weeyaan shiishada waxa lagu sheegay inay tahay tubaako. حتى هذه تواكتها هالكي سيشن يعني لو تنتظر الشيشة للوقو هالكي ما أنت لو عبي لو بوحيو وقدام يستو وحي لم يتهي بقول إلا لا بقول حبو سجارة ولا سو حقيقي from WHO. خضر محمود حريد برنامج قبناها VOA نيروبي.